السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa cabdikhaaliq kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta. sheekadan waxay ku dhacday gabadh lagu magacaabo Loisy oo u dhalatay dalka Faransa iyo ninkeeda Roman. Loisy waxay ka mid ahayd hablaha ugu quruxda badan geyigeeda. waxay ka dhalatay reer sabool ah laakiin waxay lahayd hamiye aad u sarreeya. waxay ku fikiri jirtay in aroos wacan samaysato, nin lacag leh guursato, dabaqada sare ee bulshadana ku biirto. balse calafka cajiibe wuxuu nasiibku u qoriyay inay isguursadaan nin sideeda oo kale sabool ah oo qaada ama dheerga ah, waxa maalintii la quuto mooyaane wax kale aan soo dheefin. waxay aad u jeclayd oo inta badan ka fikiri jirtay inay ka qayb gasho aroos la yaab leh oo dadka lacagta leh ee bulshadu dhigtaan. taasi waxay ahayd riyada keliya ee uga soo hadhay mawjadaheedii riyooyinka ee mid waayuhu u saqiiriyeen. waxay ninkeeda ka codsan jirtay inuu maalin u xaqiijiyo fikraddaas. Roman jacaylku xaaskiisa oo qabo awgii wuxuu u ballan qaadi jiray inuu u rumayn doono. maalin maalmaha ka mid ah ninkeedii iyo ordaya kaadh aroosna gacanta ku sida aad noo faraxsan ayaa soo galay gurigii. wuxuu aad ugu faraxsanaa inuu maanta soo helay casuumaddii ay ku riyoon jirtay. gacanta ayuu ka saaray tigidhkii casuumadda isagoo eegaya falcelinteeda, iyana si degdeg ah ayuu furtay galkii sare ee martiqaadka. waxaana ku qornaa: wasiirka waxbarashada iyo Marwo Ramambono waxay idinku martiqaadayaan xaflad aroos, Master or Mrs. Loisy. gabadhii sidii la filayay may noqon, wax farxad ahna may muujin. waxayba bilowday iyadoo ooyeysay inay tidhaahdo maxaa ku sameeya martiqaadkan. isla markiiba wuxuu ugu jawaabay: laakiin gacaliso, waxaan u malaynayay martiqaadkan inuu qalbigaaga farxad gelin doono, si adagna waan ku soo helay. intay si adag u eegtay ayay tidhi: maxaad rabtaa inaan xidho si aan meesha u tago? waxaan isku qorxiyo ma haysto, sidaa darteed ma mudni inaan meel noocaas oo kale u agaasiman aan tago. intaa kadib wuxuu weydiiyey intay suurtagal tahay inay ku diyaargarowdo. waxaanay u sheegtay inay ku baxayso lacag dhan 400 oo frank. wejigiisii ayaa xoogaa isbedelay, keliya wuxuu haystay 400 oo frank oo muddo ururinayay. wuxuu rabay inuu ku soo iibsado qori uu kaga qayb galo tartanka shiishka ee sanadkan lagu qaban doono dalka Faransa. si kasta ha ahaatee wuxuu go'aan ku gaadhay inuu xaaskiisa kaga bixiyo kharashka ay ku diyaargaroobi lahayd. dhowr maalmood kadib xafladdii arooska ayaa soo dhowaatay. Loisy waxay dareentay inay u baahan tahay silis, suurtagalna aan ahayn la'aantii inay baxdo. waxay ku fikirtay inay ka soo ammaanaysato gabadh lagu magacaabo Jan oo deriskeeda ahayd. ugu dambayntiina waxay ka soo qaadatay silis aad u qurux badan oo ku soo baxaya. waxaa la gaadhay habeenkii arooska. quruxdii ay u dhalatay, dharkii qaaliga ahaa iyo siliskii ay soo ammaanaysatay ayaa si qurux badan isugu soo baxay. indhihii dadweynaha ayay aad u soo jiidatay. habeenkaasna wuxuu ahaa habeenkeedii, waanay soo faraxday in badan. markii ay xafladdu soo dhammaatay ayay ka soo baxday goobtii munaasabadda. tagsi quufa oo aad mooddo foolxumadiisa inuu shaqada maalintii ka qajilo oo uu mugdiga habeenkii isku asturo ayay shirka u soo gashay, waxaanay u jaahaysatay dhinacii gurigeeda. isla markiiba waxaa ka hor yimi saygeedii. siday ku ahayd xafladdii? isagoo xamaasadaysan ay su-aashaas iyo kuwo kaloo la mida weydiiyey. iyadoo aan weli jawaabin ayay si lama filaan u taabatay qoorteeda. allah, waxay iga lumay siliskii, siday macquul ku tahay? yaab iyo anfariir ayaa qabsaday labadoodiiba. waxay dib u raaceen waddooyinkii ay soo martay. habeenkii oo dhanna baadigoob ayay ku jireen. markii waagii baryeyna wuxuu ninkii u jarmaaday saldhigga ciidanka, ilaacadaha iyo goobaha wax lagu falanqeeyo. dhammaan iskudayigiisii oo dhanna wuxuu ku soo idlaaday fashilaad. Loisy waxay ka qoomamaynaysaa wixii ku dhacay. waxay isweydiinaysaa siday suurtagal ku tahay lumitaanka siliska. waxa geeyey goobta arooska ayay haddana isweydiinaysaa. waxay isku hiifaysaa inay intaasoo sannadood iyo sidaasuu meeqaam hoosaysa ku riyoon jirtay. waa su'aalo aan meesha lahayn, haddana lama joogo wakhtigaas. si kasta ha ahaatee waxay go'aansadeen iyada iyo saygeedu inay u gudaan siliska gabadhii laga soo ammaanaystay, wax kasta ha ku qaadatee. waxay iibiyeen gurigoodii, waxaanay u guureen mid kale oo kira ah. waxay meel kastoy wax ka amaahan karaan garaaceen albaabkeedii. halkan ku faraan ka amaaho, halkan 500, halkan 2000. waxay isu geeyeen rafaad dheer kadib wax kastay amaahan kareen iyo wax kastay haysteenba. dhowr maalmood kadib waxay soo iibiyeen siliskii mid la mid ah, iyadoo laga soo siiyey lacag gaadhaysa 36,000 oo frank. intaa kadib waxay dib ugu celisay gabadhii ay ka soo ammaanaysatay
iyadoo ka cudur daaranaysa inay kala soo raagtay. Loisal iyo ninkeedii waxay dhexda u xidheen sidii ay iskaga gudi lahaayeen diinta culusta ee Siliska u galeen. Labadooduba waxay go'aansadeen inay habeen iyo maalin iyo hadday helaan waqti kale oo saddexaad oo labadaa kasoo dhex bixi kara ay shaqeeyaan. Waxay bilban yar iska gudaan, sanadba xoogaa iska tuuraan diintii cuslayd. waxay 20 sano ka bacdi dhameeyeen dhammaan lacagihii lagu lahaa. waa tan Loisal oo dheeheedii tegay aad u gooday oo aad moodo in cimri degdeg cadaab gaar ah u raacday. maxay noloshu la yaab leedahay? wax yaroo aan qiimo lahayn ayaa nolol iyo geeri ku dhaxaysiinaya. markii su'aalahan isweydiinayso waxay maraysaa meel loogu talagalay nasashada. waxay meel sheedaa ka aragtay gabadhii ay jaarka ahaayeen ee ay Siliska silacaas iyo saxriirkaas u mareen ka amaanisatay. subax wanaagsan John, Loisal ayaa ku bariisay. gabadhii jaarka hore ayay u garan weyday. qofkan magaceeda garanaya, iyadu magaceeda iyo muuqeeda toona aanay aqoon. isu ka sheeg fadlan, iyaduna ku soo celisay. waa Loisal, waa gabadhii aad jaarka ahaydeen ee berigii Siliska ka amaanisatay ayay ugu jawaabtay mar kale. John way u qaadan weyday inay Loisal sidan oo dhan isku beddeshay. Loisal, waad isbeddeshay, weliba aad iyo aad. maxaa kugu dhacay? waxaa sidaa ay galay Siliskaagii ayay ugu jawaabtay. gabadhii jaarku way la yaabtay jawaabta Loisal, waxaana si la yaab leh ugu celisay. laakiin sidee? Loisal ayaa uga sheekaysay in Silisku habeenkii ka lumay si ay ugu gudaan ay amaahdeen lacag aan xaddi lahayn, gurigoodii iibiyeen, 20 sano cadaab ahna ugu qaateen noloshoodii. gabadhii jaarku aad ayay uga naxday arrinkaa. intay Loisal gacmaheedii soo qabatay ayay ku tidhi, laakiin aniga Siliskaygu wuxuu ahaa mid macamal ah, wax qiimo aan lahayn. gebigiisuba wuxuu joogay 500 frank. cajiib. okay, ugu dambayntiina qisadeennii halkaas ayay kusoo dhammaatay. haddii aanad channelkan kusoo biirin, subscribe saar. aad baa mahadsantahay.